ururada argagixisada ah ee muddada 30 ah sifaayin kala duwan iyo heerar kala duwan ugu dhaxmilnaa bulshada Soomaaliyeed una diidan aragtida ku dhisan dawlad casri ah oo ku salaysan nidaam dastuuri ah oo ku salaysan nidaam ku saabsan heshiis bulsho runtii kooxaha argagixisada ah oo mararka qaybtood shacabka Soomaaliyeed ku siray magac diineed ku tirtirsiyay inay wax khayr u wadaan laakiin waxa Ilaahay mahadiisa waqtigu waxa ku dheeraaday bulshada Soomaaliyeed maanta inay garowsan tahay inay ururadaasi ay yihiin ajendayaal dibadda ka yimid oo diinna sal ku lahayn dana Soomaaliyeed aan ku dhisnayn ee ah ururo u taagan qaybinta iyo burburinta bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan aad uga xumahay dhibaatooyinka faraha badan ee deegaanada Soomaaliyeed ee wali ku hayaan waxaan aad uga xumahay deegaanada Soomaaliyeed maamulada ka jira oo wali aanan u qalab qaadan in ay ururadaasi ka sifeeyaan deegaanadooda waxaa nasiib darro ah dagaalada wali sii socda oo ku socda dadka Soomaaliyeed ee ururada argagixisada ay abuurayaan